ummadda Soomaaliyeed ay faa'iido ugu soo noqoto xiriirkii Mareykanka iyo Soomaalida dhexan oli jiray oo ku saabsan mid siyaasadeed mid nabadgelyo mid ciidamo mid waxbarasho iyo mid dhaqaale iyo mid maalgashi intaba taasi waa xiriirka labada dal ka dhexeeya sidoo kale safaaraddu waxay qabataa adeegyo ay u qabato mujtamaca Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed baahiyaha adeegga ay u qabaan sida baasaboorada waraaqaha aqoonsiga dhalasho guur iyo wixii la mid ah sidoo kaleeto safaaraddu waxay u hadashaa ummadda Soomaaliyeed waxay la xiriirtaa oo ay u furtay khad lacag la'aan ah dadka ku jira xabsiyada kuwa dambiyada galay muddada dheer iyo kuwa hadda maxaa la yidhahdaa u yimid qaxooti oo immigrationku aanu maqalay inuu haysto waa tahay sacaadatu safiir su'aalo dhowr ayaa ii diyaarsan oo aan doonaya inaan arrimaha ka weydiiyo qaxootiga ku aadan waxaad markaa warbixin naga siisaa sidoo kale wada shaqayn caankee ah ayaa kala dhexeysa dowladda Soomaaliya oo aad matasho adigu iyo dowladda Mareykanka oo aad marti u tahay oo xafiiskaagu ku yeelo oo markaa safaaraddii Soomaaliya aad markaa u matasho wada shaqayn caankee ayaa kala dhexeysa labada dowladood ee Soomaaliya iyo Mareykanka walaal waaniga hadda markaan tilmaamayay waxyaabaha safaaradda qabato tilmaamay wada shaqayn xoogan ayaa naga dhaxaysa dabcan safaaraddu muddo ayay maqnayd dowladda Soomaaliyeed muddo ayay ka maqnayd khariidada ama caalamka ka maqnayd marka hadda xiriirka ayaa dib u bilownay xiriirka waa mid wanaagsan dalka Mareykanka waa mid xiiseynaya in Soomaaliya horumar gaarto inay kaalinteeda ay dunida kaga jirto ku soo noqoto sidaa daraadeed waxaanu kala kulannay soo dhaweyn fiican iyada iyo hay'adaha kale dowladda Mareykanka iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah ee Washington deganba aad ayay noo soo dhaweeyeen xiise badanna u muujiyeen la shaqaynta dowladda Soomaaliyeed iyo taageeridda dadka Soomaaliyeed waa tahay sacaadatu safiir waxaa jirto dhaliilo lagu soo jeedinayo oo ku aadan in dadyo Soomaaliyeed oo magangelyo ka codsaday ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo magangelyo ka codsaday dowladda dalka Mareykanka oo xabsiyada ku jiro inaad u sameynayso baasaboorradii dalka Soomaaliya dib looga celin lahaa arrintaa maxaa ka dhigay arrintaa waxba kama jiraan walaale waa eedayno hadday jiraan ku dhisan xogogaalnimo xumo iyo dadkoon ka warhaynin shaqada safaaradda iyo xaqiiqada jirta intaba baasaboor horta ma samayn karo ilaa qofka baasaboorada Soomaaliya hadda waa biometric waa online waaye waa electronic waaye marka baasaboor aan qof noo imaanin oo aan faraha ka qaadin oo aan sawir ka qaadin horta ma samayn karo marka baasaboorada halka waa dadka kaliya aan baasaboorada u sameynay hadda oo ilaa 40 qof ku dhow waa dad noo yimid oo dalka Mareykanka meelo kala duwan ka yimid ilaa 40 baasaboor baan sameynay marka waa dad aanu maxaa la yiraahdaa aanu gacanta dad iyagu nala joogay way waxay ku khaldayaan in dhalinyaradu baan u malaynayaa waanu maqalay wararka ku saabsan eedamaha waa ku maqlay dad badan ayaa soo waca safaaradda oo habeenna soo waca oo maalinna soo waca oo galabna soo waca oo aniga soo waca oo toosiya dad badan oo Soomaaliya ka soo waca kuwa kale oo dadka ehelkooda dowladda kale naga soo waca xaqiiqada jirta waxa weeye ilaa hadda dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga u yimid annagu qof nagala soo xiriiray oo soo wargeliyay ma jirto dowladda Mareykanka nagalama soo xiriirin kama warhayno waxaan markaanu maqalay annaga ayaa raadinay oo niri dadka dad Soomaaliyeed oo qaxootiga miyaa jira waxay yiraahdeen annaga tiradooda idiin soo sheegi doon ilaa hadda ma jirto qof Soomaaliya oo immigration ku saabsan oo annagu aanu ka mas'uulahayn celintiisa ma jirto ولا هل قفنا إلا هذا لحدت كل عليي وراقها اللي يرادوا جو هوم شن قف كانوا سميني وشن قف يجوا بين الصومالي آدم أو حبسية داير صار لما يستي وأنا جورالك يوكم دياي ورئيسية أصبحان سيني إذا عدها وحنوش شيء دتك وارد كان سوى عيام شيء أنا قلنا حرير إميجريشن كيارمها أمريكان كوحبك مثلا أنا السفارة الشقدية ده وحوي جد حرير كدل كصوماليا يدلك صوماليا ودلك حق الجرة iyo dowladda Mareykanka xiriirka xoojintiisa laakiin immigration ka Mareykanka iyo sharciyada Mareykanka mana faragelin karo nagala kamana tashadaan Mareykanku shuqulna kuma leeyahay laakiin inta badan Soomaalidu warkaas ma oga marka ma jirto wax baasaboor ah oo safaaradaadu adiga madaxda ka tahay ay sameeyso Soomaalida dib loogu celiyo dalka Soomaaliya ma walaal ma jirto baasaboorka sida loo sameeyo aniga ku sheegay ya dadka ilaa hadda la celiyo aan ka warhaynana waxaan ku yiri waa 5 qof oo ayagu xabsiyo dhameystay qof immigration ah oo anagana laga ka soo xiriiray oo nahay waraaq u sameeya go home ma jirto
waa tahay sacaadatu safiir dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo xabsiyada Mareykanka ku jiray oo maxkamadda ay go'aamisay sharci loo diiday dalka Soomaaliya dib loogu celiyay ayaa jiro qaarkood aniga ayaaba garanayo oo waynu xiriirnaa maxay dowladda Mareykanka ku celisaa oo Soomaaliya ku geysaa marka haddii safaaradiiba aynan wax baasaboor u sameeyeen sacaadatu safiir walaalo su'aasha dowladda Mareykanka la weydiin karo iyo hay'adaha khuseeya anigu waxaan kuu sheegay qof Soomaaliya oo immigration la xiriira inaan la kala soo xiriirin nala kala tashanin annagu u samaynin waraaqo lagu celiyo waxaa jirtay tusaale aan wax badan bixiyo mar aan aeroboor ugu tagay dhalinyarada xabsiga ku jiray oo la celinayay kuwa ka mid ah oo iyagu rabay inay dalka Soomaaliya ka noqdaan oo walaalkay ku jiro anigu u tagay walaalkay lacag geeyay waxaan la kulmay nin dhalinyaro ah oo yiri Miami baa laga keenay oo dadka waa la celiyaa meeshaan ku kulannay walaalkay isku diyaarada haayeen wuxuu igu yiri taleefankaaga ma isticmaali karaa markuu iskay baray taleefankaygaan siiyey qaraabadiis wiil iyo gabar ay wax isu yihiin oo Minnesota joogo la hadlay waxay ku yiraahdeen diid in lagu celiyo wiilkii markii aan taleefankii ii dhiibay ayuu qoladii wuxuu ku yiri immigration-ka waday aniga ma rabo inaan baxo aniga markaa waa tegey magaaladan ku soo noqday anoo dhex ku sii jiray soo waceen waxay dhaheen wiilkii waa diiday inuu baxo immigration-ka kaalay la hadal nooga tarjumo waa ku noqday waa u tarjumay wuxuu yiri aniga ma rabo inaan noqdo ma rabtimi aha waxaan u sheegay gaaladii waxaan ku yiri ninkan immigration-ka ninkan ma rabo inuu tago way jeebeeyeen dib bay u celiyeen diyaaradii way dib u saareen ayagoo marka hore lacag ka soo bixiyay diyaarad soo saaray haddana markuu diiday dib u celiyeen marka anagu saan ka warhayno qof xoog lagu kaxeeyo ilaa hadda ma uu jiro waxaa la celiyaa qof isagoo ogol inuu noqdo waxa xaqiiqada jirta waxa weeye laakiinse Mareykanka la aqoon jiray maadaama ay badatay dadka isqarxiya maadaama Soomaali Mareykanka joogto u dhalatay ay ka qayb galeen qolyahan argagixisooyinka kala duwan ama al-shabaab ama Iraq ama Syria Mareykanku haddana buuq ka jiro ku saabsan dadka sharci darrada waddanka soo gala Mareykanku hadda waxay noo cadeeyeen inaysan jirin qof waddanka sharci darrada ku soo galay oo sharci la siinayo marka haddii qofka Mareykanka sharciga darrada ku yimid ay maxkamad goyso in la celiyo Mareykanku xaq bay u leeyihiin wayna celinayaan wax laga sameyn karana ma jiro Soomaaliduna wax kama sameyn karto qolo kale wax kama sameyn karto wadciga ayaa isbedelay war xaqiiqadu waa sidaas waa tahay ambassador wiilka aad ku kulanteen alaboorka oo kale marka aad ii sheegtay iminkadan si live ayaan isku garanaynaa telefoonka ayaan kula hadlay saxaafadda ayuu ka hadlay haddii aan la qaldanan VOA oo kale wuxuu sheegay in safaaradda Soomaaliya ay fududeynayso xiritaankiisa iminkana wuxuu ku sugan yahay dalka Soomaaliya oo mar labaad ayaa si xoog ah marka lagu celiyay oo lagu jeebiyay Muqdisho ayuu iminka ka soo hadlay Maxamed Deer ayaa la yiraahdaa marka ma waxaa leedahay wiilka eedeyntu uu soo jeediyay ah in safaaradda ay sameynayso baasaboorkii lagu celin lahaa waxba kama jiraan waa kuu sheegay walaal waxaan kuu sheegay waliba wiilka hadda ma ogeey aniga in xamar la geeyay waxaan kuu sheegay inaan aeroboortka Washington Dallas Airport liyaado kula kulmay asagoo oo diyaar ah inuu baxo taleefankayga aan siiyey qaraabadiisu kula hadlay ku dhaheen ha bixin wiil iyo gabar uu la hadlay qaraabo yihiin wuu diiday inuu baxo anaa uga tarjumay waa la celiyay waxaa lagu celiyay markii ugu dambeysay waa la sheebeeyay laakiin waa loo sheegay in waddanka laga saari doono aniga marka roolka kaliya aan kula hawayaan taleefankayga siiyey si uu qaraabadiis kula hadlo ugana tarjumay gaalada una sheegay inuusan rabin inuu baxo sidaasina ku celiyeen waa jeebeeyay laakiin waxay isaga u sheegeen markii aan la jooga in hadda uu asagoo iska socdo aan xirreyn uu bixi karo laakiin haddii uu diido in asagoo jeebeysan uu bixi doono maxaa yeelay waddanka Mareykanka haddii laga diiday qofka waa laga saaraya waa tahay sacaadatu safiir dhalinyaro kale oo badan oo Soomaaliyeed ayaa jiro oo weli xabsiga ku soo jiro kuwa oo nolosha qoyska joogo muddo sanad 2 sano ku dhawaad ayay ku sii sugan yihiin qaarkood waxay mar uun rajeynayaan in laga saaro xabsiga rajeynta laga qabo marka dhalinyarada isleedahay adigu wallahi warajadooda ku saabsan immigration-ku sidaan ka warhayno Mareykanka iyo xaaladaha Mareykanka ka jira bariyaha kan ma fiicna Soomaalida bariga hore si fiican baa loo soo dhaweyn jiray si sharaf leh loo soo dhaweyn jiray sharciga hadii waa la siin jiray Mareykanka ama karadaha noqotay hadda intii uu dhacay ay bilaabatay in dad muslimiina oo Soomaali ka mid tahay ay isqarxiyaan Mareykanka dhexdiisa isku qarxiyaan Soomaalida ma ku Mareykanka isku qarxiyay laakiin Brandina meel yiraahdo California ku taala iyo Orlando iyo ku isku qarxiyay waddanka ku dhashay iyo Soomaali ka qayb gashay dadka argixisooyinka qaarkood oo Minnesota iyo ka tagay sida la sheegay markay dhacday Mareykanku way joojiyeen qof darro waddanka ku soo yimid oo aysan ogeyn waxa uu yimid iyo inuu ka tirsan yahay qolyahaas inay aqbalaaneen sidaa daraadeed
way waxaan u malaynayaa jaaniskooda inuusan fiicnayn kuma raacsani kelmadda adhaysa nolosha quus bay ka joogaan nolosha quus kama joogaan waddankoodii haddii lagu celiyo waa ka xun waa dabcan khasaara ku dhacay lacag baa ka soo baxday lagoya ka baxday laakiin adduunkoodii ma dhammaanin noloshoodii ma dhammaanin waxay dad badan oo Soomaaliya joogo milyanisa ayaa nolol haysta maaragtay oo maad ku nool marka annagu waxaan ku dadaalaynaa haddaanu safaaradda nahay Soomaaliya sidaan ugu samayn lahayn mustaqbal dadka Soomaaliyeed ay gaaraan maalin dhaweyto dhalinyarada markaan la hadlayay waraysan waxaan ku yidhi annagu idinku waxaad u mudaharaadaysaan 40 qof oo laga yaabo in lacag ka soo khasaartay oo xiran oo waxba gaaraynin hadday ugu liitaan waddankoodii waa loo celinayaa laakiin annagu waxaan ka shaqaynaa dhowr iyo 10 milyan oo Soomaalida oo Soomaaliya jira inay fursad helaan inay waxbarasho helaan inay tababar helaan inay maalgelin helaan kuwaasaanu shaqadayada tahay kuwa inta jooga nala kama talageliyo okay waa tahay saacadu sifir anu kaaga mahadcelinay ruuxantii waqtigaaga qaaliga ah mashquulka badan ee aad markaa jaaniska inoo siisay su-aasha ugu dambeysa haddii aan arrintaa kaa weydiiyo iyadoo aan su-aal kala raacsan doono saacadatu safiir waxaa tahay safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Mareykanka dadka Soomaaliyeed ee la celinayo qasabka lagu celinayo ayaad safiirkoodii tahay dhibaato ayay tirsanayaan in dalkii haddii lagu celinayo markaa la kulmi doonaan dhibaato kale amaba ay markaa noloshooda halis gelayso ma kala hadashay dowladda Mareykanka si markaa haddii ugu yaraan suuragal ay tahay lagu hakiyo ama xitaa dowladda Mareykanka haddii arrinta ay ka fog tahay jumciyadda qurmaha ka dhaxayso qaybteeda qaxootiga ma kala hadashay arrimahan inkastoo adigu kaasay jagada inay tahay safiir ma kalama hadli karo ayagana ilama soo doonan anigana sharciga Mareykanka ma faragelin karo ma dhihi karo Mareykanka uma sheegi karo qofkay xiraan iyo qofkaysan xirin iyo wixii Mareykanka gudihiisa ku saabsan sharcigiisa ma faragelin karo marka kalama hadli karo qaramada midoobeyna kalama hadli karaan in Mareykanka waxa ay ka hadli karaan in ummadaha hay'adaha xuquuqul insaanka haddii qofka lagu dulmiyo haddii xabsiga مثلا lagu dilayo lagu xirayo lagu dibadaabiyo Mareykankuna taa iyaga aan sameeyno liabilities iyo waxyaabo badan baa jiro ay ku xayaan qofka marka Mareykanka waxay sameeyaan kii qofkii wadankooda ay u haystaan inuu sharci darro ku yimid xaq bay u leeyihiin wadan walba xaq u leeyahay inay celiyaan waxaana kugu raacsanayn however meesha aad leedahay noloshooda khatar ku jirta noloshooda khatar Soomaaliya ku jirta maxay xagee ka imaanaysaa ma sheegin aniga wadanka Soomaaliya inagoo dhabi waa joognaa waa ka warhaynaa qofka Soomaaliya naftiisu khatarta ugu jirta maxay ugu jirtaa khatartu waayahay dagaalada iyo waxyaabaha ay dabcan marka dhalinyaradu ka cawarayaan in marka ay khatar ka soo gaarayso iyadoo waqtiga dabcan qarax ayaa maanta ugu dambeysay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waa tahay saacadatu safiir haddii aan hore u sii socdo waxaa tahay safiirkii Soomaaliya waxaad madashaa ummadda Soomaaliyeed 2014 bishii Abriil dalka Kenya waxaa markaa ka dhacay raaf Soomaalida dib loogu celinayo dalkooda si xoog ah waliba waxaa ka hadlay arrintaasi safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Kenya xilligaasi Maxamed Cali Americo oo xitaa arrintii diblomaasiyadeed meel khatar gaarsiiyay oo dalka Soomaaliya gaaray golihii wasiirada halka kula kulmay yiraahday arrintu waa halka soo kuma habooneen in dowladda Soomaaliya aad kala hadasho arrintan si ma aragtay ugu yaraan wafuud reer sare ah oo madaxweynaha Soomaaliya uu matalayo inay soo gaaraan Mareykanka oo arrimaha lagala hadlo dowladda Mareykanka gaar ahaan waaxdeeda socdaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ma aragtay qolyahan yiraahdo wasaaradda arrimaha dibadda si ay u hakiyaan socdaalka Soomaalida dib loogu celinayo dalkoodii oo Soomaaliyana xasarada laga soo sheegayo mararka qaar dhalinyarada inay kala kulmayaan walaal horta anigu Cali America ma hayso sida daraadeed wixii Cali America Nairobi ka sameeyay Mareykanka kama sameyn karo laakiinse Mareykanka iyo qaxootigaas waa kala duwan yihiin qaxootiga aad ka hadlaysid waa qaxooti xariya ku jira aniguba waa ka hadlay kuwa hadda dhadhaab ka jira markii la yiri waa la celinaya dowladda Soomaaliyeed iyo dalka Kenya ayaa ka wada shaqeeya iyo hay'adda qaxootiga u qaabilsan UN-ka ayaa ka wada shaqeeya dadka Soomaaliyeed qaxootiga sidii loo celin lahaa taas waa arrin gaar ah arrinta qaxootiga Mareykanka yimid Mareykanka xariiq qaxooti ma jirto qof ayaa sharci darro iska soo dhiibay asaga oo raba inuu Mareykanka sharcigiisa helo ma garanaysaa farqiga u dhaxeeya waxa waaye Soomaalida xariiq qaxootiga ku jiray uma imaanin inay Kenya sharcigiisa helaan wuxuu u yimaado qaxooti xariiq qaxooti ah meel kale loo waday marka xaaladdu waa ka duwan tahay kuwa intii wuxuu yimaadeen Mareykanka sharcigiisa ka dhibaan Mareykanku ayaga istikhyaar u leh iyo dal kasta adduun ka mid ah inay qofka sharci siiyaan iyo inaysan siinin waxaan ku yiri maadaama laga hore Soomaalida way siin jireen laakiin maadaama hadda ay bilaabatay in Soomaali ay ka qayb gashay argagixisada inay tiradu haba yaraatay in kuwa muslimiin sheeganaya ay iska bilaabeen Mareykanka hadda waxay u eg tahay inay ku fara adeegayaan
qofka sharci darrada ku yimaada waddankooda inay celiyaan annagana hadal noogama bannaana mana faragelin karo sharciga su-aasha ugu dambeysa